السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر أول شيء كتاي مسمس مقالكم حن كسر قادم دونا حيوانا لا إن فريقنا يندلنا ملك استوين كوارعنا حتى بيت كي لها يحرمك. وحو النبي ينسو بناينا يري حديث هيك صور مسومة مع عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمسة من الضواب شنك من الحيوانات كلهم فاسق لما توا فاسقين يقتلن في الحرم حتى حرمك أيها ذلك أن الغراب وتكها ولو تكها صح لشيء إنه هي تكها بالك عدل استانجار ولا هي والحد أتون واشنبرو جليرك إنجليش مناوح لقول هذا golden eagle والعقرب تكها والفأر شيركة والكلب العقور عقور نحن قناة مركا أيجا تدعونك نبي قحة وتلمامي إن حيوان هذا الذي لا يوجد شيركو صابت ولد لي أنا يتها عرضة بان أو كل حفا في مجتمع سو عرضة أكل كود بيا آدم كأي حيواناتك سواء أنت بدان عرضة ضاعونك أو كلا وحيبا صارون شيركو كود بيا يا رشاق حيوانات كلا الذي لا يوحكم ده حيوان كقرط هذا أما كود هذا هو أنت بدان قرينا لجهرة sababta loo dilay ma cadda laakiin haysta qaar ayaa waxay sheegayaan in boqol xasanaad ah ka helayso xabada kaliya disho sababta loo dilayana ay tahay inay kamid ahayd xayawaanaadkii dabka ku afoofi jiray nabi ibraahim alayhi salaam markii qoomkiisu ay ku tuureen dabka xayawaanaadka kale la dilay isagana waxa kamid ah dib qalooca sababta loo dilayana waa suntiisa ba'an oo suntiisu aad u daran qofka uu qaniinana ay ku sababi karto dhimasho haddii xataa uu qofkaas ka badbaadana soo gaarayso dhaawac halis ah xayawaanaadka kale la dilay waxa kamid ah xayawaanka tukaha shimbirkaas tukaha la yiraahdo waa tukaha midabkiisu cadaanka uu ku jiro sababta loo dilay wali ma cadda laakiin mar hadii nabiga uu sheego wax noqonaysa samca wadaaca marka waa in la dilaa ma noqonaysa xayawaanka kale la dilay waxa kamid ah ayga tadcuunka ee ugaarsanaya dadka iyo xoolaha labadaba ila dilay waxa kamid ah abeesada ama halaqa sida nabigeena sallallahu alayhi wa sallam ku sheegay xadiiska uu ka soo warinay Abu Hurayra radiyallahu anhu uqtulu aswadayn dila labada mid madow fi salaati hatta saada dhexdeeda alhadiyati abeesada wal aqraba iyo dib qalooca fiira gaar ah marka waxa u baahan marka la dilayo abeesada ama maska hadii uu gurigaaga soo galo wax laga rabaa inaad tiraahdo 3 jeer naga soo bax hadii aad ilaahay garanaysid hadii uu markaa soo bixi waayo waxay noqonaysaa in bisinka aad u qabato oo aad markaa disho sababtoo sida loo yeelayaana wax jirta wax dhici karta in abeesaas ay tahay jin muslim ah oo soo booqda